subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وناكسن دونيدا ميل والبوات كجوكتان كنا سودواذا برنامجكي صباح وناكسن صباح وناكسن صباح وناكسن انت سريركا حنون وصرا الله كسار صباح وناكسن انت سريركا حنون وصرا الله كسار صباح وناكسن markale kulan wanaagsan dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobada barnaamijka subax wanaagsan aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn uga xumaaday go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ay ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo isku dhiibay beelaha Habargidir iyo Abgaal 96 xildhibaan oo shaaciyay mooshin ka dhan ah madaxweyne Farmaajo qodobada iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaad ku maqli doontaan barnaamijka subax wanaagsan magacaygu waa Cabdullaahi balwan وانا مركله iyo barnaamijkii subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan markale kulan wanaagsan barnaamijka arooriyada subax wanaagsan qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan qodobada dhawaan aad maqli doontaan waxa kamid ah Farmaajo oo si weyn uga xumaaday go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ay ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur balse marka hore wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya mudane Islow ayaa isku dhiibay beelaha Abgaal iyo Habargidir oo laga galay godob aad u weyn wasiirka oo huwan magaca dawladda federaalka Soomaaliya ayaa banaanka soo dhigay sirtii dawladda isla markaana shaaciyay weerarkii lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu ahaa qalad qaawan isla markaana uu ka soo qaaday dawladdu inay tahay caruurtii Habargidir iyo Abgaal isagoo yiri waxaan nahay caruurtiini waxaan idinka codsanaynaa qalad baynu galnay inaad nacafisaan dawladuna waa ubad Abgaal iyo Habargidir ay dhaleen oo kale wasiirka amniga ayaa arrintan ka dhigay arrin aad u fudud sidoo kalena wasiirku wuxuu iftiimiyay dawladdu inay qalad weyn gashay isla markaana ay marti u tahay beelaha ugu quwadda weyn koonfurta Soomaaliya isla markaana ugu baawarka adag geyiga Soomaaliya oo loogu yeero Habargidir iyo Abgaal hiraab ayuu wasiirka amniga ka soo qaaday quwadda koowaad ee dawladdu ay qalad ka gashay isla markaana la doonayo in ay cafiyaan raaligelinta noocan u dhacday ayaa waxa aad uga xumaaday qaar kamid ah taageerayaasha dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee wasiirka amniga wuxuu ka soo qaaday qofkii ka xumaanaya iyo qofkii ku farxayaba dawladdu inay marti u tahay Abgaal iyo Habargidir waa kan calaacalka iyo raaligelinta wasiirka amniga dawladda Soomaaliya oo ka faaloonaya qaladkii laga galay beelahaasi iyo sida ay uga xun yihiin لأنه نجرى هذا يلشينه وكلنا نهاي سالجنا كبحنا ما شاء الله وحنا عملنا راب كذا وحكانا وحعفيو وحكانا جدال الوظيفة دون أمريكا يبقى الوطن kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo isku dhiibay Abgaal iyo Habargidir subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan si aad ula socoto barnaamijyada ka baxaya channelka Aftahan Video Production fadlan ku soo biir oo dheh subscribe waayo haddii aad subscribe tiraahdo waxaad helaysaa barnaamijyada channelka Aftahan Video Production ka baxa 24 saac waayo waxaad ka mid noqonaysaa kumaanka kun ee ku xiran channelkan isla markaana waqti walba hela warar tayaysan iyo barnaamijyo aad loo soo tafaftiray gordho waxaad maqli doontaan Farmaajo oo si weyn uga xumaaday go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ay ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur welina barnaamijkii subax wanaagsan ayaan ku
guda jirnaa 96 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si toos ah u shaaciyay motion ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xildhibaanadan oo ay ka dhex muuqdaan Mahad Salaad iyo Axmed Fiqi isla markaana qayb ka ah xildhibaanada u soo tafaxaytay in ay mar uun meesha ka saaraan siyaasadda uu dalka ku maamulayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku guuleystay inay helaan tiro 96 xildhibaan ah xilli baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankoodu ay ka harsan tahay muddo bil ah xildhibaanadan ayaa imika diyaar garoobaya kalfadhigii baarlamaankana waa u xiran yahay tan iyo bisha labaad 2018 waxaana la rajeynayaa 2018 baarlamaanku inay intaasi ka sii bataan maadaama ay soo korortay gafafka iyo qaladaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay sii galayso xildhibaanadan tiradoodu gaaraysa 96 xildhibaan ayaa waxa ay aad uga caroodeen qaladaadka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan weeraradii qaawanaa ee lagu qaaday qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo kamid yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidoo kale waxay xaqiijiyeen xildhibaanadan inay si weyn uga xumaadeen dowladda oo xitaa aanan u quurin shacabka Soomaaliyeed iyo golaha baarlamaanka qaladkii dhaca in ay maalin uun raali gelin ay ka bixiyaan waxay dowladda federaalka ay aad uga gaabsataa isla markaana ay ka soo qaadaan wax aan jirin hadduu qalad oo ka dhaco sidoo kalena ma jirto wasiir isku daya in uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka qanciyo waxyaabaha sida weyn u kiciyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa kamid ah xiriirlaaliyaha qaranka mudane Axmed Cali Daahir oo aan wali la ansixin oo qaatay go'aano qaarkood lid ku ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxayna aad uga caroodeen go'aanadaasi iyo dowladda oo aanan marnaba isku dayin in ay isbarbar qabtaan waxa kale oo ay xildhibaanadan aad uga caroodeen golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo u bareera mararka qaarkood go'aano lid ku ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynuhu oo noqday maqana jooge oo aanan xitaa wax isku day ah ama isku keenis ah qaladaadku markuu dhaco xitaa isku madayo waxyaabaha kale oo baarlamaankan aad uga careysiyay waxa kamid ah madaxweynaha oo yasmo iyo waliba mid aanan u soo jeedinba arrimaha ku aadan fahamka shacabka iyo qabaa'ilada dowladda federaalka ka tirsan in uu maalin uun wax un ka dhaadhiciyo ayuu madaxweynuhu aad iskula weeyahay waana qayb kamid ah waxyaabaha sida weyn baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay uga careysan yihiin go'aanka 96 xildhibaan ayaa waxa suurtagal ah in ay sii kororto haddii la gaaro bisha labaad 2018 waxayna sidoo kale caraw weyn ku beeraysaa qaar kamid ah baarlamaanka aan wali ku soo biirin 96 xildhibaan ee doonaya mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wararka mooshinka iyo tirada xildhibaanada haddii ay sii kordhaan iyo haddii ay naaqusmaanba waxaad ka maqli doontaan channelka Aftahan Video Production iyo barnaamijyada fooda idinku soo haya ee fadlan subscribe leh commenteska ka qayb qaado like taha iloobin kuna biir had iyo jeer barnaamijyada ka baxa Aftahan Video Production subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa aad uga xumaaday si kululna u weeraray go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ay shalay ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ciidanka dowladdu ka soo qabteen hoygiisa uu ku yaala magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya oo aaminsan inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur yahay dambiile qaran isla markaana qayb weyn ka qaata dhibaatooyinka lagu hayo dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana damacsan waqtigan inuu dowladda meesha ka saaro ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay garsoorka dalka inuu sidan u dhaqmo isla markaana uu ka tilabsado xir ilaalinta guud ee qaranka wuxuuna Farmaajo ugu baaqay xir ilaalintu inay go'aan adag ka soo saaraan arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu sii daayay madaxweynaha Soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayaa lagu tibaaxay in go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir uu yahay mid laaluush uu ka dambeeyay isla markaana Cabdiraxmaan uu iibsaday garsoorkii maxkamadda sidoo kalena maxkamaddu u dhacday cadaalad darro wuxuuna codsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in go'aankaasi degdeg looga laabto beelaha hiraabo oo aad uga carooday xasuuqii ciidanka dowladda ay u geysteen hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo waliba isagoo dhaawac ah oo la soo qaaday xabsiga la dhigay lagu jirdilay sidoo kalena ay dhacday in lagu bahdilo hoygiisa magaalada Muqdisho sidoo kale arrinta naxdinta leh oo Farmaajo iska indha tiray walina oo ku indha cad yahay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur mar kale xabsiga la dhigo waxay tahay in ciidanka dowladdu ay markay ay tageen hoygiisa ay xasuuqeen staafkii iyo waliba haweenay shaqaale ka ahayd hoyga
xasuuqu kaliya intaa kuma ekaan god qura ayaa lagu wada aasay ciidanka dowladda ayaana falkaasi samaynaya gabadhii iyo weliba wiilashii halkaasi ku sugnaa rag iyo dumar in laysla aasana xitaa argagixisada geeska afrika laguma araga arrinta naxdinta leh oo inta badan ka caraysiisay beelaha hiraab habar gidriya abgaal ayaa ah in meydkii loo diiday in ay aastaan markii ay damceen inay dowladda la xiriireen loo sheegay in dowladdu god qura ay ku wada riday raggii iyo dumarkii lagu xasuuqay hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo dhaawacana xabsiga la dhigay ugu dambeynna lagu guulaystay in maxkamaddu ay sii dayso meeshii laga sugayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu raaligelin ka bixiyana wuxuu yidhi waa sharci darro in maxkamadda gobolka banaadir ay sii dayso wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya saacado ka hor isna uu shaaciyey inuu aada uga xun yahay maxkamaddii sii daysay cabdiraxmaan cabdishakuur labada mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya farmaajo iyo khayre ayaa isku raacay in ay maxkamaddu si qalada u dhacday islamarkaana la doonayo racfaanka u dalbaday xeer ilaaliyaha qaranka in si deg dega loo ayido gobolka banaadir maxkamadeedana ay ka codsanayso dowladda federaalk soomaaliya inay ka noqoto go-aankii shalay loona sheego cabdiraxmaan cabdishakuur in dacwaddu weli ay taagan tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha soomaaliya iyo kii saacado ka hor ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la yaab ku noqotay beelaha hiraab oo shalay u adkaysan la'aa dhibaatadii hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur ka dhacday halka wasiirka amniga raaligelin ka bixiyena madaxda sare ee dowladda federaalk ay leeyihiin wax qalada ma dhicine cabdiraxmaan isaga ayaa khaa'in ah oo qaranka iibsanaya wixii kusoo kordha go-aanka madaxda sare ee dowladda iyo weliba go-aankan ugubka ah ee farmaajo ka soo yeeray waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waa bahda barnaamijka oo isku duuban oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgel subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan